السلام عليكم. kusoo dhawaada mawduuceena caawa. mawduuceenan waxaynu kaga hadli doonaa wakhtiga. waa maxay sababta aynu u dareemi la'nahay wakhtiga marka aynu hurdino? isku si ma u arkaan wakhtiga malaa'igta iyo bani aadamku? wakhtigu waa hal xidhaale aad u adag oo ay ku mashquulaan culummada ku takhasusay dhanka fiisikiska. hurdadu waa raaxo yar oo nafteennu u baahan tahay, sidaa darteed sababta aynu dareemi la'nahay wakhtiga waa dhimasho yar oo ku timaada nafaheenna wakhtiyada la hurdo. alla subxaanahu wa tacaala qur-aanka wuxuu inoogu sheegay qisadii asxaabulkahfi ee dhalintii godka seexatay iyagoo la badbaadaya diintoodii muddo dhan 309 sanno. markii la weydiiyey imise sanno ayaad hurdeen, waxay ku jawaabeen maalin ama maalin badhkeed. isku mid ma u arkaan malaa'igta iyo bini aadamku wakhtiga? jawaabtu waa maya. farqi aad u weyn ayaa u dhexeeya, sababtoo ah malaa'igtu waxay nool yihiin wakhti aad u dheer kaasoo alla subxaana wa tacaala ugu talagalay. tusaale ahaan, haddii aynu kala duwanaanshaha caddayno, waxaa jira noolayaal yaryar oo gebi ahaan nolosha ay nool yihiin ay tahay ayaamo, laga yaabaa sekinku inuu ula mid yahay sannad. alla subxaana wa tacaala isagoo inoo caddaynaya qiimaha uu leeyahay wakhtigu, waxa uu qur-aankiisa ku sheegay meelo badan oo uu ku dhaartay, waxaana ka mid ah waalcasr waalfajr walleyl iyo suurado kale. rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxaa laga soo wariyey xadiis uu micnihiisu ahaa ka dhaqaaqi maayo addoon kasta banka qiyaame ilaa 4 la warsado ama la weydiiyo, waxaana ka mid ahayd halka uu cimrigiisii kusoo qaatay iyo wakhtigii shabaabnimada halkii uu ku soo lumiyey ama uu ku soo qaatay. wakhtigu waxa uu ka mid yahay ashyaada ama waxyaalaha aan kaydka gelin lana iibsan karin. imaam xasan albasri ayaa aqwaashiisa ama odhaahyihiisi waxaa ka mid ahaa: yaa bni aadam inamaa anta ayaamun kulamaa dahaba yowmun dahaba bacduki. oo micnaheedu noqonayso in aadamow adigu waxaad tahay maalmo, maalin kasta oo kaa tagta waxaad tegay badhka. tegitaanka maalin kasta waxayna tusaysaa ama inoo caddaynaysaa u dhowaanshaha aynu dhowaanayno xabaasha. xilliyadan dambe waxa uu reer galbeedku u faafinayaa dhaqan aad u fool xun, kaasoo ah mar kasta oo uu qofku usii dhowaado geerida inuu farxo. waxayna ugu magac dareen birthday ama maalinta dhalashada. wakhtigu waa nolosha aynu noolnahay gebi ahaanteed, kaas oo haddaynu ka faa'iidaysano nolosheenani badhaadhe iyo barwaaqoobayso. waxaad ku arki kartaa suuqyada dhallin badan oo fadhida meelaha fadhi ku-dirirka, halkaas oo haddii mid ka mid a dhallinta wax laga weydiiyo faa'iide intee leeg ayaad ka haysaa fadhi ku-dirirka, uusan ku siin karin jawaab cad. ma ogtahay haddaba daawade in sanadku yahay 4 xilli, 12 bilood, 48 isbuuc, 365 maalmood? ma isweydiisay maxaa inagu soo kordhay, se maxaan ku soo kordhinay adduunka? waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. fadlan subscribe noo saar, gambaleelkana furo, like noo saar, share and comment si ay nagu noqoto dhiirigelin.